gacma dhan way xanuun ya gacmi saas ay dhiig soo deedeeno balbalooyin qoftaan hool ma iga rabtaa in ay dishay soo wadatay wax ma ku sheegaa aniga gacmihi saani dhiigoyne xanuun gacma carab iyo cadaab maqashaye ma ku soo martay wadankiis ninkii ka tagay wadankiis ka waxaan idinla wadaagayaa muuqaal kuleyta aniga aad iyo xanuujiyay intaynan u guda gelin muuqaalka waxaan ka codsanayaa in aad like saarto sida uu gaaro dad fara badan ramadaan kariim daawadayaal meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaanu idin leenahay soon wanaagsan waxaanu idin rajeynaynaa soon la aqbalo Somali Dream ayaad naga daawanaysaan oo aad nagala socotaan gundhiga sheekada aanu u guda gale iyo waxaan halkan idinkugu soo gudbinayay taniyo waagan yaraa adigan i daawanayo ama aniga aan ahaade waxaan maqli jiray carab iyo cadaab oo la isla meel dhigo taasi maqal bay kugu ahaan jirtee ma ku soo martay social media markii uu banaanka keenay wax fara badan uu soo baxay waxa dibadda u soo baxay dhacdo walba oo markaas dhacday isla daqiiqadaas ay taagan tahay in aad la kulantid aniga oo iska soo afuray oo TikTok-ga iyo Facebook-ga dhaxmeereysay oranay oo yara mataqaana khawas bal wixii soo kordhay baa waxa iga soo horbaxday wax aan mooday markii koowaad maxaan ku tilmaamaa xablay jaraf maan ku tilmaamaa xaaska dushiisa koromaan ku tilmaamaa adigu dee waxa aan markii koowaad aanan moodin bini aadan in ay ku taalo qoxani cod gabareed ayaa ka dul hadlayso waa gacanteedii oo waxay leedahay gacanteedii saanay noqotay walina naagta guriga joogta ama midda u shaqeynaysa waaye kulleeto waa qof dumar qofka u shaqeynayso baa waxaan ku daawo isiibaan leeyahay oo ismaahinaysa anu intaan ka badan uma shaqeyn karee waan iskaga tagayaa bitir yaa baan iri oo waxaan magacan bini aadanba adinkana waad ila arki doontaan hordhiciina waad ku soo aragteen marka daawada waxaan la wadaagayaa fiidiyowgaasi waxaan rajeynayaa dad fara badan in uu gaaro ama dad YouTuber badan inay ka hadlaan arintan dhibaatada dadka Soomaali gabdhaha isbishal ay ku haysato Sacuudiga oo maaragta Carabta Khaliijka badan loo shaqeeya waan ku noqday fiidiyowgii dib baan ugu soo celiyay waxay ka leedahay gacantan malaha chlorine ama miya matqaashita may alaabta ugu darto markii dhaqaysa gabadhan waa waligeed meel shaqo u meeyna tagin jaafeel loogu midari jiray oo madeeda iyo shaambadaas baa loo dhiibi jiray oo alaabtaas ku meer baa la oran jiray oo alaabteedii bay iskaga dhaqi jirtay hawraarsan saasayba ku ilaan meeshaan waxa loogu daray jaafeel gacantiiba intay gacan ka tagtay oo qabab dul fuuleen xitaa dadka aashitadii kiimikada ka shaqeeyo malaha waxay ugu dartay ugu jiraan gacantiiba waxay noqotay karkar ayada dhan indhahaagu ma dhameystiri kartid mararka qaar waxaan ku yiri waxyaabaha social media ka soo horbaxay ama dhibaatooyinka iyo tacadiyada dadka bini aadanka loo geersanay waxay kugu reebayaan dhibaato maskaxiyana gabadhii waxay leedahay waan ka tagayaa gurigan dib dambe ugu soo noqonay sidaas darteed waxaan jeclaystay markaasi fiidiyowgaas inaan inta soo qaado in la soo wadaago fiidiyowgii ayaan dib u sii raacay gabadhii soo dhigtay ayaa ka sii sheekeynaysa waxay leedahay gabadhaas waa gabar aanu qaraabanahay walaalanahay waxay joogtaa Sacuudiga gacanteedii saasay noqotay oo alaabtay dhaqaysa waxyaabo kiimika loogu daray gacanteedii baa saas jilfisha u yeelatay geedka markii uu baxay mataqaana geedaha quracyada iyo dalkeena dadka jooga ama geedaha waaweyn oo qansaxyada oo abaartu markii ku dhacdo qoloftu ku wareegsanto amal bay ugu soo wareegsantay haragii ma garan karayso runtii bini aadan ma moodid abeesad moodaa moogiyay jilfilay yeelatay oo wax aad looga murugoodo oo qalbigaaga dhaqaajinaya gabadhii cabashay ka muujinaysa waxa leedahay anaga dhibaatadana dalkan ugu haysato kulleeyto qofku guriga markuu imaad iskama tagi karo oo banaankii booliskiya ku sugan
muuqaalkaas waan idin tusi doonaa gadaalna waad ka daawan doontaa hortiisa video waa kusoo aragtay laakiin in yaraan ku darayaa dadka carabta mar walba waxaan isku xijinaa inay yihiin dad maaragtay muslim ah oo annaga diin ahaan noo xiga oo mataqaanaa dad islaama ayaan markasta niyadda gashanaa wadamadan westernkaana waan fogeynaa oo wadamadan kale western kaliya xitaa Kenya kama dhacdo sidani xitaa wadamada kale kama dhacdo xitaa wadamada Afrikaanka oo jaarkana kama dhacdo waxaan maanta carabta markii qofku u shaqeynay ka soo dhaco inkastoo Soomaalida Kenya loo shaqeeyo wadamada westernka marka u qaxna dadku way shaqeystaan cid kasta way xamaalada factory hotel hadaad ka shaqeynaysid cid looma shaqeeyo badana hadaad meelaha kale warshadaha ka shaqeynaysid qofka bini'aadanka xuquuq ayuu wuxuu u leeyahay in gacmihiisa la dahaaro oo gacmihiisa loo geliyo galafsi waaweyn qofkaasi hadduu meel yar xanuunto ama uu ku jabo xitaa waxa uu leeyahay lacago magdhow ah mas'uuliyiinta warshadaasi ama xaruntaasi mas'uulka ka ah qofka say u ilaalinayaan waxay ka cabsanayaan sharciga inuu qabto dawladdaasi sharci ayay dhigatay shaqaalahaas meesha ka shaqeynaya xuquuq buu leeyahay haddii aad ku kuftid xataa aad jabtid waxaad leedahay lacag magdhow ah inta noloshaada ka dhiman lagu siinayo gaari jidka markaa maraysa hadduu kugu dhufto gaarigaasi qofkaasi laysankiisa wuu baaba'ay waxa uuna leeyahay qofkaasi bini'aadanka qofkaasi aad ku dhufatay lacagaa iyo magdhow ayuu leeyahay waa wadan aan gaalo ku sheegno oon caayino oon aflagaadino mar walba oon habaarno markii salaada laga baxo gaaladan ilaahay naga qabtaa leeyahay kuwii aan islaamka xigsanayno oo carabta ahayna waa kuwaas oo maanta in la iska indhatira maahan dhibaatada maanta taagan kullayta tani way dhacday waagan yaraabaan maqli jiray adiga xataa naftarkaaga inaa maqli jirtaa laga yaabaa carab iyo cadaab baa la ismeel dhigay laakiin tan run bay maanta aad ugu arkaysaa social media gabdhihii u shaqo tagay ama meeshaas isku yiri bal xoogaa qutulyoom ka soo saarta oo dhibaatadaasi la gaarsiiyey waana arrin qalbiga ku dhaqaajin doonta waxaan kaaga diidayaa videoga inkastoo hore soo hordhaciisa aan soo bandhignay in mataqaana aad taxadartid haaniyo gacmiisaanay naqdeen gacma dhan way xanuunooyin ya gacmiisaas dhiig ku soo deedeenooyin balbalooyin qoftaan hool ma iga rabtaa ama inay dishay soo wadatay wax ma ku sheegaa ana gacmiisaanay dhiigoynay xanuuno gacma dhan muufku tag kala eegan qatay kareena weydii warkii dhan ku jirto bishaan day dhamaad u lig bedelo qsum billah magaalka kala moonolaana ma dhimana bas marka walaalahayga dardaaran way qabtiin Soomaaliyeena dardaaran way qabtiin maamooyinka baabooyinka oo gabdhahooda inay la soo wada rafaadinay rafaadkan loo geesanay dardaaran way qabtiin wallaahi wadankeena nabad ilaahay hanoo keeno wadankeena kuwii lagu faano ilaahay hanoogu dhigo wadan khayr qabta ilaahay hanoogu dhigo wadankeena hal cidil bisoo qabiya dagaalkaas bisoo cilad uu ku qabiya maahane wadankeena wax noogu fiican ma arkeeni wadankeena maslaxa ilaahay hanoo keeno wadankeena noogu duceeyo wadan dadoo wuxuu noo taraa malaha dalkaaga ahayn dareen ku joog waaye dalkeena ahayn dareen la'aan iskaaga joognaa xurnimo ku miheysani maanta banaanka daadid sidaartid ma uu soo caweysi kartid wadankeena sidii shaarna ka mareen marka insha Allah wadankeena nabad ilaahay hanoo keeno رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير